nacayb badan oo ku salaysan haybta yaa la abuuray waxaa jira ururo ilaa iyo hadda la dagaalamaya qalfoofkii siyaad barre isagoo aan ognahay inuu dhintay muxuu ahaa xilli hore ama talada uu ka tegey ugu yaraan 34 sano ka hor arrinta dacaawalay dadka shidaya qaar ka mid waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwa aan ka hadlay ee ururada ah ee weli aan ka bogsanin dhibaatooyinkii waagaa dhacay waxaan ugu baaqaynaa naca iyo qalfoof la dagaalanka siyaasadda ku salaysani inayna ahayn mid horumar iyo nabadna gaarsiinaysa dadka Soomaaliyeed way soo rafaadeen gaajo iyo saxariir baa ina dilay adduunka kamayna dambaynin haddaynu maaragtay ay nabad haysano marka inaan haddana nabadaas xooga la saaro hadallada foosha xun waxyaalaha dadka kala fogeynaya lagu hadlayo dadka waaweyn mutaakkiina iska ilaaliyaan social media dad badan waxa ku jira aan bislayn laakiin odayaasha iyo siyaasiyiintu inay ogaadaan wax kasta oo dhacay la isaga yimaado waxa hadda lagu hadlayay xasuuq baa ka dhacay meesha waxa kale laga hadlayay ciidankii liiga booliska waa xasuuqno waan ka adkaanay labada arrimoodna miin bay noqonaysaa marka haddii booliskii la xasuuqay maxaa loo xasuuqay oo loo laayeen bay noqon hadday iyagu xasuuqeenna ciddii xasuuqeen ee maatida yaynu baariyo wada ogaan doonaa waxaan ku kalsoonahay hal qof oo maatiya oo hubaysane ciidanka la dagaalamay aan ahayn halka inay kaga dhicin waan ognahay waan la soconaa si kastaba ahaatee walaada laftigeeda dhibaato hooyada ka barakacda meel ee xitaa dib u baxda ee dhibaato ku tahay xukuumaddu waxay qaaday tallaabooyin shacabkanagi in aaga shacabka ku nool la gaaro gargaar loo geeyo loo fadhiisto gobol loo fidiyo waan ka shaqeynaynaa